سيبو ياراناي inaan mar labaad saaka waftiga inoo yimid oo markii hore ma taa idin la hadlay wafti aad uga culus waftigii hore oo hogaaminayo Sheekh Maxamed Ibrahim Shakuul badan baad maqashay ma filayaa muxaadaraadkiisa iyo kalimaadkiisa iyo acmaashiisa khayrka badan ee ama dacwi ah ama dunawi kalaba waxtarka naafica ummadda waxtarta meelo badan aad ka maqasheen ama aad ku aragteen bay u badan tahay أما أخذت كما أذكرتين إن شاء الله تعالى شيخ يوفتي وقابلها يا أنا صوب بعض مانطة نسأل إن شاء الله تعالى كلمات كان يسندونا سيفي عن نجاح الله فرو أنا وهذا ما سنتين وجزاكم الله خيرا تفضل شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إلهي بأمهات سكالة كنتي فرحد وين بيئيتا هاي إنا صوب وغضمانتا قرحي انترناشنال سكول أو عن هوري مادو عشان قرقروح لبضان دينتا إي أخلاق ذو كم وقتو runtii wax lagu farxo weeye aragiin wax lagu farxo weeye waa ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligiisa weeye inaad maanta haysataan fursadda qaaliga ah oo iskuulkan quruxda badan madrasadan quruxda badan oo cajiibka ah oo mataqaana culimadan imaamka mudiirka iyo dadkoo dhan iyo macallimiintoo dhan ay idiin hagarbaxayaan fursadda qofkii haysta وقف رنتي فرصة وين هايستا لونا باهي إنه ده الحمد لله الحمد لله ده الحمد لله الحمد لله صابتها واحد شرع عرور في رمضان ويديك وكلاء أو فرصة أنا هايسنين أو السكول لجنين أو قرآن برنين أو أحباب برنين أو سيدا كويناني إذن كان ما أنت ما شاء الله حلقة يابا قاركين قرآن كبرتن كمرة إنسان قاركين حفظ السنة بالغة يابا قاركين وحلقة يابا سكولين أدقتان مركب فرصة داسي وفرصة وين وأنا النعمة من الله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها حتى تسكت إذا أننا ترسان نعمويك الله ما ترين كرتان بيد الله تبارك وتعالى مركا وحال ذكر بعد ذلك حرب أنا إذا ودي سؤال أنتي نربتا إن القرآن كحفظ الصو بالقعمها كورتاي هالمر ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ضمان وحيروان حفان نقدر ما شاء الله وكفر أحسن قعنت الدكية أنتي نربطا مركي وينادان أي قرآن كبرتان أي دين تبرتان إن يددك أنفعان ويددك يدلك يدين واحتران أنتي نربطين يددك واحتران بالقعمها كرتا ما شاء الله محضر ملايين إنسان أنت نرد اللي يرى صوبحي وقرآن كوضا برتي سبدل أنت لك بكيني كرن ما شاء الله قعنت الدكية قعنت الدكية ما شاء الله حالة ذكرها إن مركو ورأت والدك باري ونقطان كلمة دكوات إلهي سبحانه وتعالى قرآنك إن بدن بك هذي مهمة إلا هاي بر الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلهي وحو حكومة أصيغ كلي إناد عابدان والد كان إناد وناجسان بالله تبارك وتعالى مركو والدك هلا مقلو هلا احترامه هلا دقيستو وركودا wax fiican oo ku farxaan hal la sameeyo waalidku ma taqaana waxa uu fiican uu jecel yahay inuu arko waa inuu arko gabadhiisa ama wiilkiisa oo cashirkii ka baxay oo quraankii bartay oo wax war loo soo qoray taasa qalbiga waalidka farxad gelinaysa muuminiintuna waxay ku ducaystaan mar walba rabbana hab waj'alna lil muttaqiina imama saasu Allah tabaaraka wa ta'ala marka waxaan rabaa inaad ii sheego fursad baad haysataan waxaan aaminsanahay haddaad dadaashaan meel saraad gaari kartaan meel sara dadka adduunka isbeddelka ka sameeyey oo ama culimada noqday ama maxaan ku yidhaha adduunka isbeddelka fiican ku soo kordhiyey waa idinkoo kale idinkama fiicna waa qof adoo kale oo 9 bilood ku dhashay waa qof uun dadaalay ilaahay tawfiiqdiisana ay maaragtay haleeshay gabdhaha waxay noqon karaan daaciyaad bay noqon karaan dhakhaatiir bay noqon karaan naas bay noqon karaan waxay noqon karaan bulshada
kuwa bedela waxbarashada waxaa loo bartaa inaad dadka iyo ummadda aad ku anfacdo waad aragtaan gobolkeenna dowlad deegaanka soomaalida ama soomaali oo dhan siday u baaba'santa marka caalamka naloo fiiriyo waan baaba'sannahay soo ma dadka la rabo inay bedelaan oo dalka horu mariyaan oo wax qabtaan waa idinka wey waxaa la rabaa qofka wax qaban karaana laba sifo inuu yeesho waa inuu yahay qof horta diin leh qof aqoon maadiya leh oon diin lahayn waxba faa'iido ma leh qof dhakhtar oo kaadida sida la isaga dhaqaba aan aqoonin oo si loo istijoodaba aan garanayn muxuu inoo kordhinayaa waxba nooma kordhinayo marka waxaa la rabaa rukniga koowaad waxa weeye annaga haddaan muslimiin nahay inuu qofku horta diinta ka dhisan yahay haddii markaa uu maadigii iyo cilmigii kale wax ka bartana waxaa weeye waa ziyaado waxtarkiisu waa ka badnaanayaa inta kale oo labadii cilmi buu ilaahay subxaana wa tacaala isugu daray marka waxaa la rabaa qof kasta inuu ku fakero oo halkan jooga inuu ku fakero siduu qur-aanka ku xifdin lahaa gabadhu siday qur-aanka ku xifdin lahayd qof walba waa inuu ka fakeraa sideen jaamacadda darajada ugu sarraysa ku gaari karaa hamigaa waa inaad leedihiin intiina la hamiga inay meel sare gaadhaan intiina leh bal gacanta kor u taaga yaa raba inuu meel sare gaadho oo meel fiican gaadho maa sha allahu tabaaraka wa tacaala gacanta dejiya waxaasoo dhanna waxaa ka sii muhiimsan adduunkan waa laga tegayaa aakhiradiinna waxaa la rabaa qofku inuu noloshiisa diinta islaamku dhallinyarada iyo da'yarta meel weyn bay gaadhsiisay qur-aankuna aad buu uga hadlay nebiguna sal alla alay wasalam aad buu uga hadlay sababtoo ah annaga hadda waan gaboobaynaa wax yar baa noo hadhay dadka mustaqbalka madaxda noqon doona ee culimmada noqon doona ee dadka hagi doona waa idinka marka waxaan rabaa inaad dareento mas-uuliyad baa ku saaran waad yar tahay si kastood u yar tahay weli mas-uuliyad baa ku saaran nabigu sal alay waslam wuxuu dhahay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi mas-uuliyadda kulligiin bay idin saaran tahay maaha mas-uuliyadda dadka waaweyn kaliya inay saaran tahay waxaa la rabaa marka inaad mas-uuliyadda aad ka soo baxdaan waalidkiin inaad farax gelisaan inaad ku fakartaan mujtamaca inaad beddeshaan mujtamaca nin walba waxaa rabaa inuu fakaro dhan markaan weynaado waxaasaan qabanayaa wax fiican baan qabanayaa dadkaan waxu tarayaa ummaddan waxu tarayaa hamigaasi waa inuu kugu jiraa ood saa u fakartaa meel kastana waad gaari kartaa in sha allah haddaad dadaasho qur-aankaad xifdin kartaa jaamacad baad ka soo bixi kartaa ganacsigaad ku guulaysan kartaa xitaa madaxweyneaad noqon kartaa wax kaa hortaagan ma laha kaama fiicna marka waxaan rabnaa dhallinyarada inaan idinku abuurno inaad himma caaliya inaad leedihiin laakiin hadduu ardaygu iska daba wareego wakhtiga maalaa yacni ku lumiyo sheeko iyo ciyaar iyo games guriga kolkaad tagtaana telefishon iyo maxaanku idhaha social media waxyaabaha haddaad isku mashquulisaan horumar ma gaaraysaan sababtaa wakhtigii oo dhan isagaa kaa qaadanaya adduunka waxaa la yidhi waxyaabaha hadda baabi'iyey oo carruurta mustaqbalkoodii in badan oo ka mida ku ciyaaray waxaa ka mida waxa la yidhaahdo social media oo qofki inuu waxaan dadku ay daawadaan wakhtiga lumiya adoo kolba arkay wakhtigu kaa lumaya haddaan idinku daawanna guryihiiba laga yaabaa inay yaallaan marka wakhtiguna waa sayf alwaqtu ka sayf daqiiqad kasta waa inaad ku xisaabtantaa hadday maanta daqiiqada kaa khasaaraan berri dib kuguma soo noqonayaan daqiiqadahaas maanta soomaalina axadda maaha axad dambe oo bisha taariikhda maanta ay tahay dib dambe loo arki maayo way tagtay khalaas marka su-aasha weydiintale waxaa inaad isweydiiso maanta maxaan qabsaday maanta maxaan bartay meeqa aayadood baan bartay meeqa xadiid baan bartay maxaa ii kordhay waa inaad isweydiisaa waxaan ku soo koobayaa hal qodob oo ka mida xadiid nebiga sal alay wasalam ka sugnaaday oo uu yidhi ikhtanim 5 qabla 5 5 arrimood ka faa'iidayso 5 nicmo oo waxaa jira inta badan dadku ay haystaan waxaa laakiin jirta 5 baa kaa qaadi doonta nicmooyinka ilaahayna siiye waa badan yihin wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha xadiiskan wuxuu sheegay 5 ka mida nicmooyinka iyo khayrka faraha badan haysano mid ka mida wuxuu nebigu sal alay wasalam wuxuu yidhi shabaabika qabla haramika ka faa'iidayso intaad dhallinyarada tahay
oo aadan duqoobin sababtoo markaad duqowdo eed weynaato ee da' gaadho waxba ma xifdin kartid quraan ma xifdin kartid wax badan ma baran kartid ilaahay baa inoo sheegay wuxuu yidhi waman nucammirhu nunakisu fi lkhalq qofkii cimri dheer la siiyo awooddiisaa la dhimaa sidii aad wax u xifdin jirtay uma xifdin kartid sidaad u ordi jirtay uma ordi kartid sidaad u socon jirtay uma socon kartid yacni adiga dhan tabartaada waa la yaraynayaa intaad maanta yar tahay marka baa waxaa uu nebigu sal alay slam ilahay ka faa'iidayso oo wax baro qur-aan ma xifdin kartid markaad weynaatid dad badanoo waxaa jira maanta dad waaweyn ah oo maanta qoomamoonaya oo haddaan waagaan yaraa wax baran lahaa haddaan diin baran lahaa haddaan cilmi baran lahaa haddaan saa yeeli lahaa laakiin waa too late waa waktigii waa dhacay waxba ma qaban karaan hadda adiga maanta laakiin fursad baa haysataa iskuulkan fiican baad joogtaa waxaa laga yaabaa waalid garab kuwa inuu jiro ku taageeraya macallimiin fiican maamul wanaagsan mujtamacii oo dhan fursad weyn baad haysataa laakiin fursadda dadka qaarkood way ku ciyaaraan ma fahmaan goor dambe oo ay ku baraarugaan oy dhahaan alla waagii haddaan si fiican wax u baran lahaa waagii haddaan